kulan wacan daawadayaal halkan waa warsida TV kusoo dhawaada warbixin aynu idinkaga diyaarinay waxqabadka madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa alla mahadiisa inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarno sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabna weli maynan gaarin. tan iyo markii xilka madaxweynaha loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu hortabintiisa koobaad ee howlqabadka ka dhigay dib u dhiska ciidamada, helidda xuquuqdooda dhameystiran ee billaha, dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed iyo dib u dhiska dalka. dhammaan tallaabooyinkaas uu qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay noqdeen kuwa hirgalay oo hadda shacabka Soomaaliyeed ay ku ildoogsanayaan bilicda dalka, ammaanka iyo horumarka laga gaaray dowladnimada. si loo sii horumariyo hannaanka dowladnimada loona mideeyo maamulka dakhliga, dhammaan hay-adaha dawliga ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kal hore amar ku bixiyay in dhammaan dakhliga soo gala wasaaradaha lagu wareejiyo wasaaradda maaliyadda oo u xil saaran in ay hal meel isugu geyso dhammaan dhaqaalahaasi si aan xatooyo ama musuqmaasuq loogu sameynin. arrimaha ugu waaweyn ee uu ku dhaqaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka mid ah isbeddel ballaaran uu ku sameeyay qaabka loo xalin jiray khilaafaadyada dhexmara madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka, isagoona gebi ahaanba meesha ka saaray faragelinta shisheeyaha ku lahaayeen wadahadallada iyo dhexdhexaadinta dadka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweynaha dalka ayaa ku guuleystay in dib dalka loogu soo celiyo dhammaan dhalinyaradii ku xirnaa dalka dibaddiisa, bixinta shaqaalaha mushaaraadka dowladda, ciidamada iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka. marka aan eegno dhanka dib u dhiska, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay bartamihii 2019 barnaamij loogu magacdaray Isxilqaam, kaas oo dib u dhis ballaaran loogu sameeyay haatan xarumaha danta guud ee dowladda oo ay bilic iyo bidhaan qurxoon ka muuqanayaan. waxaana haatan heer gabagaba ah maraya dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo udub dhaxaad u ah isu socodka ganacsiga iyo shacabka ku kala sugan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye. tallaabooyinka kale ee lama ilaabaanka ah ee la xiriira waxqabadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka mid ah xasilinta khilaafaadyadii had iyo goor u dhexeyn jiray golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada, taas oo saldhigtay in xasilooni siyaasadeed dhex marta dhammaan hay-adaha dowladda. madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan haya hogaaminta ugu sareysa dalka waxaa maragma doonta ah in ay sii kordheen taageerayaashiisa marka loo eego sida shacabka Soomaaliyeed ay ula dhacsan yihiin isbeddelka xoogan uu muddada 4 sano uu cagaha ugu dhigay dowladnimada Soomaaliyeed, iyadoo geesta kale caalamku ay qireen in madaxweyne Farmaajo uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee soo mara Soomaaliya muddo 4 sano gudahooda tusiyay dunida sida uu u tallaabsaday qaranka Soomaaliyeed. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gudbay diilinta guusha kadib markii uu geed dheer iyo mid gaabanba u koray dhismaha maamulka Galmudug. socdaal iyo safar dheer oo qaatay bilo badan waxaa Galmudug u shidmay shumaca horumarka, dib uga kabashada colaadaha iyo isu soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed ee deegaanada Galmudug ee colaadu kala irdheysay. waxaana loo yagleelay maamul uu madaxweyne ka noqday Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo dhammaan shacabka Galmudug ay aad u soo dhaweeyeen madaxweynahaasi loo doortay. dhinaca kale dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horumar wanaagsan ka sameysay ammaanka, dhaqaalaha, adeegyada bulshada iyo xiriirka caalamiga. meelaha ay dowladda Soomaaliya dib u dhiska ballaaran ka sameysay waxaa ka mid ah Stadium Muqdisho, maktabadda qaranka, madxafka iyo tiyaatarka, waxaana haatan heer gabagaba ah maraya dhismaha guriga hooyooyinka. sidoo kale dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu amaanay dhismaha ciidamada xoogga dalka, waxaana ay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heshiis la gashay dowladda Turkiga iyo dowlado kale, taas oo keentay in dowladda Soomaaliyeed ay hesho ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo haatan qaarkoodna ku maqan tababaro. ciidamada dowladda Soomaaliya loo dhisay waxa ay kala yihiin ciidamadii xoogga dalka ee ahaa kuwa militariga, Danab, Gorgor, Haramcad, Waran iyo sidoo kale Alf Group. waxaana haatan tababar dalka dibaddiisa ugu maqan ku dhawaad 7,000 oo askari oo Soomaaliyeed, kuwaas oo magac ahaan u sita Special Force ama ciidamada gaarka looguna talagalay in ay xaqiijiyaan ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. haddii aynu eegno dhanka doorashooyinka,
dowladda Soomaaliya ayaa iyada iyo maamul goboleedyada waxa ay heshiis ka gaareen dhanka doorashooyinka, hase yeeshee waxaa heshiiskaas dib uga baxay maamulada Puntland iyo Jubbaland. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday inta jeer uu tanaasulaad ka sameeyay arrimaha doorashooyinka, taas oo ay ku qasbeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. waxa uu madaxweynaha dalka ka tanaasulay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. golayaasha baarlamaanka ay meelmariyeen hindi sharciyeed la xiriira arrimaha doorashooyinka, balse ay ka soo horjeesteen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta oo gadaal ka riixayay maamulada Puntland iyo Jubbaland kuna dhiirigelinaya in ay ka hor yimaadaan doorashada qof iyo codka maadaama aysan ka helaynin danahooda gaarka. maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa laf dhuun gasho ku noqday ummadda Soomaaliyeed kadib markii ay soo horistaag ku sameeyeen dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed iyo sii hanaqaadida qori isku dhiibkii doorashooyinka. waxaana dhowaan ay dalbadeen in shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka lagu qabto xerada Xalane, balse madaxweynaha ma uusan ka jawaabin codsigooda. hase yeeshee beesha caalamka ayaa ka falcelisay, isla markaana madaxweyne Farmaajo lagu qanciyay inuu ka qayb galo shirkaasi, isla markaana madaxweynaha uu tanaasulaad ka muujiyay maadaama uu doonayay in dalka uu hore u socdo. 22 bisha oo shalay ku beegneed ayaa shirka uga furmay magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa dibadda ka istaagay maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagoo doonaya in ay fashil ka dhigaan shirkaasi. laakiin beesha caalamka ay aragtay damaca maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana ay amar ku bixisay in shirka la sii wado maadaama ay beesha caalamka horey u sheegtay in maamulada Puntland iyo Jubbaland loo aqoonsanayo qaswadayaal dhib ku ah dowladnimada Soomaaliyeed. inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay horey u ogaayeen in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay gadaal ka riixayaan amaba ay sitaan shaatiga Imaaraadka iyo dowladda Kenya, isla markaana in dhawaanahanba ka aamusnaa kiiska badda oo aysan si rasmi ah uga hadlin. marka laga reebo Axmed Madoobe oo si kooban uga hadlay kiiska badda, waxaana uu uga hadlay qaab indhasarcaad ahaan, laakiin si cada uma muujin dareenkiisa uu ka qabo arrimaha badda iyo hadda heerka ay gaartay dowladda Soomaaliyeed. waxaa dhowaan la filayaa in dalka uu galo doorasho, inkastoo ay maamulada Puntland iyo Jubbaland diidan yihiin ka qaybgalka shirarka looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka. dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa har iyo habeenba u taagan horumarka ummadda Soomaaliyeed, waxaana ay shacabka Soomaaliyeed rajeynayaan in mar kale uu dib u soo laabto madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay horey ugu sii socoto dowladnimada Soomaaliyeed. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii aynu ku eegeynay waxqabadka madaxweynaha dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay Warsida TV, saar subscribe, la wadaag asxaabtaada oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan halkan soo gelin.